fartaasi wataan Muuse Biixi ugu codeeyay haddana calankii Soomaaliya ku dhayaya ma taalo sheegaynaa muusana oo aan leeyahay wadaa weli furan way ku bannaan tahay waxa dhici doonta in aad aragto iyadoo meel laba ay ku bannaanayn inta aad wax arkayso indhahaagu wax arkayaan ka tag meesha waanu dhirbaaxnaa dadka libaaxyadaanu nahay waa la yaqaanaa dadku waa yaqaanaa ku tashada ina kaahilo hore baad dhulbaantiya habar jacayl isugu dirta haddana waad wadaa ku sii wad si wax u shaqee intaadan muruga la siixan waayin war nafiishtaad noo keentay naga kaxee halkani waa magaalada Ceegaag ee xarunta gobolka Cayn oo 260 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Buuhoodle beelweynta Xuseen Siciid Harti Hayaag ayaa taageero go'aanada ay soo saareen 330 xubnood ee beelaha dhulbaanta iyo Fiqshini halwa guddiga 330 ka taageeradeeda halla waa baaq nabadgeliyo labada qodob ma horta aanu ka hadlayaa baaq nabadgeliyo aan ku horeynayaa waxa weeye dadka jooga la yiraahdo Awliya Ayuub Arab ciida gale habar yoonis iyo habar xabusheed halkan waxaan u marinaa hawada inay ciidamadooda meesha dooman laascaanood yaariisay naga dulqaada si nabadgelyo dibkooda marno dhiigooda marabno wax goonisitaaga aanu leenahay ma jiraan dadka waxaan ku codsanaynaa culimada adduunkooda iyo waxgarkooda inay ciidamada naga dulqaada si nabadgelyo ay naga dulqaada taas waa taa guddiga 330 laascaanood laga qabtay go'aamadii ay soo gaadheen 12 qodob ahna waanu taageeray waa ku dhaqmaynaa Illaahi Raxmaan Raxiim marka hore Ilaahay baa mahadle marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan intay nagala soo qayb gashay xafladan aynu ku qabanay degmada Ceegaag aniga ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Ceegaag waxaanu taageersanahay qodobadii ay ka soo saareen gobolka Soo iyo reer Fiqshini aad iyo aad baan u taageersanahay annagoo joogna degmada Ceegaag oo xafladda ku qaban waxaanu kala oo leenahay waxaanu si gaar ah u taageersanahay qodobkii ahaa dalka wixii aan u dhalan ee isaaqii hayskaga bixin hadeerna waxaanu leenahay hayskaga bixin si degdeg ah uga bixin marka hore waxaanu taageersanahay si mugle iyo miisaan la u taageeraynaa guddigii 330 ka ahaa ee Fiqshini iyo dhulbaante 12 qodob ay soo saareen annagoo ah beesha Xuseen Siciid ee degmada Ceegaag ku sugan degmada Ceegaag Muuse Biixina waxaanu leenahay Muuse Biixi cimri tagay ceeb lagu masagootiyaa la yidhi ciidamadaada kala bax carrada harti kala bax baan leenahay dhulka harti kala bax halkan waxaan ka taageeranaa annagoo ah beesha Xuseen Siciid ee degmada Ceegaag go'aankii 12 ka ahaa ee ay soo saareen guddigii 33 ahaa ee dhulbaante iyo Fiqshini marka labaad waxaan codsanaynaa oo aanu ka doonaynaa ciidamada duulaanka ee ku yimi gobolka iyo deegaamada SSC inay iskaga baxaan si nabadgelyo uga baxaan badda SNM taadiyada ay ka geysanayso gobolka Sool ay caadaysatay in garboodka dhulbaante kuwa ka dhiidhiyay ee muruqooda iyo maskaxdoodaba mideeyay marka hore horta waan ku sabooray guddida la xusay ee 330 ee ka kooban beelweynta dhulbaante iyo Fiqshini qodobada ay gaadheen waan taageeray waxaan leeyahay ninkii inaad arweytii ilaahay kaga noqon waan idinku barbar taagana xagal daacay naga ilaaliya jaamada ka soo duushay Hargeysa ee sanam uu hogaaminayo Muuse Biixi ee dalayan u dhalan iyo dadaan qabin ku qasbaya awood ku qasbaya wax lagu qoslo weey waxaan baa u jeedinayaa maamulka Muuse Biixi jaamada Muuse Biixi yaan baa u jeedinayaa waxaan leeyahay war maanta chance baad haysataa aadan bari heli doonin intaan gabi kugu soo dumin intaan wabi kugu fatihin intaadan farta dhexda ka qaniinin intaadan muruga la siixan waayin
warnafiishta loo keentay naga kaxee waxaan hadalka kaga tegayaa leeliguba geediga horu lama lagdeeyay mar hadii hayaan loo lulumo leexay dabadeed lugti faraska raacdaati luunku gowracay allow yaa danta luudku ila loo xiraata ku qabanay magaalada Ceegaag inaanu dareenka iyaga ku muujino annagoo abeesha Xuseen Siciid ee loo yaqaan Hayaag waxaanu ku metelaa gobolada Sool iyo Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu ku metelaa dhulbaante oo aanu nahay curadkiisii waxaanu baaq u diraynaa nimanka aanu dariska nahay ee jamhadda la yiraahdo SLM waxaanu leenahay dadkiina nagala baxa meesha aad keensateen nagala baxa oo waxaad yeelaysaan hadduu allihiin alleeyahay nagala baxa dadkiina dhulbaantana waxaan leeyahay annagu curadkii baan nahay waxaanu ku baaqaynaa dhulbaanta dhulta fooda ku hayne ciidanka inoo qaybiya ina diyaar gareeya dhammaan bulshaweynta reer Ceegaag waxay ila taageeraysaa oo aanu si mug iyo miisaan loo taageeraynaa gudidii 3 ahayd ee ay dhisteen beelaha SSC ee beelaha dhulbaante iyo beelweynta reer Fiqishini baan taageerayaa waxaan ku taageerayaa go'aamadii 12 ee ka soo baxay baanu si naf loo taageeraynaa si mug iyo miisaan balaanu taageeraynaa waana ku dhaqmaynaa haddii Ilaahay noo waana soo dhaweynaynaa waxaan kaloo taageerayaa in beelaha dhulbaante ama harti ee waqooyi degan iyo beelweynta Fiqishini ay aayahooda ka tashadaan oo wixii aan dani ugu jirin ay banaanka ka maraan markii hore waxaan ku salaamayaa salaan minigi miisaan leh oo milkiya sharaf leh marka labaad haddaanu nahay dhalinyarada beelweynta Xuseen Siciid Hayaag waxaan si migiya miisaan leh u taageeraynaa qodobadii 12 ahaa ay soo saareen xubnihii 33 ahaa ee ay ka tashiga gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haddaanu nahay dhalinyarada waxaan leenahay dhalinyarada horta halganka gasha oo dal xoreysa ayaa Soomaaliya leedahay way xoreeyeen waxay ku xoreeyeen Afyaadin ilaa New York bay gaadheen oo Cabdilaahi Kongo ayaa u diray New York talyaanigu wuxuu xamili kari waayay muddo 10 sano kaliya inuu ku sugnaado koonfurta Soomaaliya marka dhalinyarada ku kacday Soomaaliland ma xamili karayso dhalinyaro ku kacday ma xamili karayso waxaan hadalkayga kaga tagayaa samaan lagu ma doonayo xorriyadu waa sanka u fuul inaanu sankaha fuulayaan kaga tagayaa waxaan soo dhaweynaynaa anagoo beesha Xuseen Siciid oo degmada Ceegaag 3 gudida qodobadoodii waxa kaloo ii raaca war nimanka isaaqow daris bay nahay eelbaan oo wada daaqnaa war la saacad qule guban meeyse colaad meel walba gaadhaysaa hadda colaad ku tashateen war codkiina muujiya hay qarinina ismuujiya weynahan halka la isugu yimid ay isugu yimaadeen beesha Xuseen Siciid annagoo muujinayna dareenkayaga lana wadaagayna dadka iyaga ehelada ah ee aan wada dhalanay aan isku qabiilka nahay ee dhibaatada ku socoto dadkaas oo taadi badan lagu hayo dhibaatooyin badan loo geystay marka hore waxaan u tacsiyadeynayaa dadkii dadku ka dhintay intii dhaawacantay in Ilaahay ha u boogayo waxaan kaloo leeyahay anagu horta beesha waxaan nahay Xuseen Siciid waxaananu joognaa dunida daafaheeda laakiin goobta aanu ka hadlayna la dhuuman mayno magaalada ugu horeysa Ceegaag kaga xisaabtamto Soomaaliland ee laf dhabarka u ah dareenkayagana waxaanu ku muujinaynaa inaan qarsan doonin dibna aanan uga laaban doonin shucuurtayada saanu muujinayno fartaasi wataan Muuse Biixi ugu codeeyay haddana calankii Soomaaliya ku dhayaya waana iska sharcidii aan Muuse Biixi ugu codeeyay calankii Soomaaliyana waan ku xidhay horta halkan salaanimo taalo cidna salaami maayo halkan salaanimo taalo dagaal baa yaala marka hore waxaan taageeraynaa qodobada 12 ee ay soo saareen 3 gudida ahaa ee dhulbaante iyo Fiqishini ee ka talinaya aayaha dalka iyo dadka iyo danta waxa ay ku jirto waxaan u sheegaynaa Muusana oo aan leeyahay wadda wali furan way ku banaan tahay waxa dhici doonta in aad aragto iyadoo meel laba ay ku banaanayn inta aad wax arkayso indhahaagu wax arkayaan ka tag meesha
waannu dhirbaaxnaa dadka libaaxyadaannu nahay waa lays yaqaannaa dadku waa is yaqaannaa inta aanan ku dhirbaaxina dhirbaaxadu aanay dhicin dhaaf dhulkayaga oo dhugo itaalkaaga bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa degmada ceegaag waxaannu annagoo ah beesha xuseen siciid hayaag waxaannu si mug iyo miisaanlaba ku taageeraynaa qodobada 12 ah ee gudida 33 ee faqashini iyo dhulbahanta ay ka soo saareen baaqi ay ka soo saareen si mug iyo miisaanle ayaannu u taageeraynaa waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa in muuse biixi wuxuu wadaa aargoosi waannu soo jeesanay dhulbahantana wuu israacay intaanan haddaba agaha dhulka kaaga qaadan waxaannu ku leenahay si degdega uga baxwaariyaha degmada ceegaag annagoo joogna dareenka jabhadda SLM waddankayaga ku hayso waxaannu leenahay waxba kaama yaalaan dalka nooga bax haddii kale xabad baannu kaaga saaraynaa ku qaatumaanu nohooshay gobaannu nahay anna kuma baqno hobiriyo bangad baannu nahay madfaca 165 baannu nahay kaaraha duulahay yo beebahaanu nahay oo geelayagu buhurmadaha qobad kuma gedmedo